warbixin uu shaaciyay sirdoonka Mareykanka ayaa waxaa lagu ogaaday in amiirka dhaxal sugaha ee boqortooyada Sacuudiga Mohammed bin Salman uu ansixiyay dilka wariyihii qurba-joogga ahaa ee Jamal Khashoggi sanadkii 2018. warbixinta uu shaaciyay maamulka madaxweyne Biden ayaa waxa ay tibaaxaysaa in amiirka uu ansixiyay qorshaha in la soo qabto ama la dilo wariye uu saldhigiisu yahay wadanka Mareykanka. waa markii ugu horeysay oo Mareykanku si cad u sheego magaca amiirka dhaxal sugaha kaas oo diiday in uu amray dilka. Khashoggi ayaa waxaa la dilay xilli uu booqanayay qunsuliyadda Sacuudiga oo ku leeyahay magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga. waxaan ogaanay in amiirka dhaxal sugaha ee Sacuudiga Carabiya Mohammed bin Salman uu ansixiyay hawshii Istanbul ee Turkiga si loo soo qabto ama loo dilo wariyaha reer Sacuudiga ah Jamal Khashoggi. warbixinta ka soo baxday xafiiska agaasimaha sirdoonka qaranka ee Mareykanka ayaa sidaas lagu sheegay. warbixintu waxa ay tibaaxday 3 sababood oo ay rumaysan tahay in amiirka dhaxal sugaha ay qasab tahay in uu ansixiyo howlgalkan. warbixinta ayaa sidoo kale waxaa lagu magacaabay shakhsiyaad ku lug lahaa ama mas'uulka ka ahaa dhimashadii Jamal Khashoggi. hase yeeshee warbixintu waxa ay leedahay ma ogin muddada ay qorsheyntu ku qaadatay dadkii ku lugta lahaa in ay ninkaasi khaarajiyaan. mas'uuliyiinta Sacuudiga ayaa waxay dilka Jamal Khashoggi ku eedeeyeen in uu ku yimid howlgal damiirka ka fog oo ay qaateen koox sirdoon ah oo loo diray in ay wariyaha dib ugu soo celiyaan boqortooyada. iyadoo maxkamad ku taala wadanka Sacuudiga ay maxkamadeysay oo ay bishii Sebtembar ee sanadkii hore ku xukuntay 20 sanadood 5 qof oo lagu eedeeyay in ay howlgalkaas ka qayb qaateen. sanadkii 2019 Agnes Callamard oo ay qaramada midoobay u saartay arintaasi in ay ka soo warbixiso ayaa waxa ay dawladda Sacuudiga ku eedeysay in ay fulisay dilka ula kac ah ee la sii qorsheeyay ee Jamal Khashoggi. waxa ay nagaashaanka u daruurtay maxkamadda Sacuudiga iyadoo ku tilmaantay mid cadaalada lagu hareer maray.